sheekay sheeko xariira beri baa waxaa jiri jiray wiil la yiraahdo Cumar. wiilkaas oo ari u raaci jiray reer tuulo degan. wuxuu ariga u daaqeyn jiray kayngeeda badan oo tuulada agagaarkeeda ah. wuxuu dadka ariga leh bishii ka qaadan jiray lacag yar. maalin maalmaha kamid ah ayuu jeclaaday Cumar inuu magaalada tago si taasi ugu suurta gashana intuu arigii xagga tuulada u soo didiyay ama u soo eriyay isagoo oo ku qaylinaya waa waraabe halay soo gaadhoy waa waraabe halay soo gaadhoy. dadkii tuulada oo dhan ayaa intay ku argagaxeen qayladii Cumar ay iyaga oo hubsita si degdeg u soo ordeen. ay si degdeg Cumar ugu soo gurmadeen. markay dadkii u yimaadeen may arag waraabihii uu Cumar ku qaylinayay. hase ahaatee waxay noqotay in Cumar iyo arigii tuulada loo kaxeeyay. Cumar markii uu arkay in beentiisii hore u hirgashay dhowr cisho ka bacdi ayuu isagoo adeegsanaya xeeladihiisii ayuu intuu arigii u didiyay xaggii tuulada aad ugu qayliyay mar labaad waa waraabe hase halay soo gaadhoy waa waraabe. hase ahaatee markii dadkii soo gurmaday way arki waayeen waraabe iyo xataa raad waraabe toona. waxay weydiiyeen sababta ku kaliftay inuu been u sheego. markaas ayuu yiri waan baqayo waxaan u baahday qof ila jooga markaan waxaas lahaa wehel ha ku noqdaan ha ku imaadaan. markaas dadkii intay ay aad iyo aad u xanaaqeen ay uga xumaadeen beentaa uu sheegay ayay waxay u bixiyeen Cumar beenaale. waxayna noqotay in wax kasta uu sheego loo qaato been. waxaa maalin dambe dhacday isagoo arigii ku ilaalinaya kaynta dhexdeedii ayuu wuxuu arkay waraabe soo gaadaya arigii oo soo dhex socda. markaas ayuu qaydiyay oo yiri soo baxay waa waraabe. dadkii tuulada cidi kama soo gurman oo waxa loo qaatay inuu markanna uu been sheegayo. waraabihiina sidaa ayuu Cumar ku cunay. sheekadina saas bye bye caruurey.